Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga meel kasta joogtaan caalamka waad salaamantiin salaam kadib. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka xawaaraha kombiyuutarkaaga aad u kordhin lahayd, tusaale ahaan haddii uu kaa cuslaado oo kale, ama aad u nadiifin lahayd waxyaabaha trashska oo kale ama qashinka ku jiro aad uga saari lahayd. Marka halkan waxaan ku baran doonaa 4 tallaabo iyo wixii kale dheeriya oo ku dari karaba. Marka 4 tallaabo ugu muhiimsan. Ta koowaad waxa weeyaan disk clean, ta labaadna waxa weeyaan temp baa la yiraahdaa, ta saddexaad prefetch, kill auto start apps ama programmada iska soo kacaya la dilaysa ama aad u galaalin. Marka aan bilowno. Ta ugu horeysa waxa weeyaan disk clean ayaan idhi. Waxaad soo furanaysaa start button kaad qabanaysaa amaba waxaad samayn kartaa xaggan aad ku dhufanaysaa kadib waxaad ku qoraysaa disk clean. Programka ugu horeeya soo baxay weeyaan. Markaad disk clean soo qorto C baad kasii dooranaysaa kadibna okay baad siinaysaa. Marka uu calculate gareynaya waxyaabaha ku jira ama cache ka noqdo ama marka aniga laptopka waxa ku jira wax ka badan 222 megabyte. Tan runtii waa files aad u badan oo aan u baahnayn. Sidoo kale waxaan kusii dhufan doonaa waa yar qaldamay iga raali ahaada. Waxaad ku qoraysaa disk clean. Marka calculate gareey. Markaas haddaad doonto systemka inaad sii magaranaysaa iga raali ahaada. Haddaad doonto systemka laftigiisa inaad maxay tahay sii clean gareysaan halkan baa kusii qoran tahay system clean up system files. Marka okay baad ku dhufanaysaa haddana waad kasii dooran okay. Xoogay waad yar sugi intuu calculate gareynayo. Waxaa laga yaabaa inay farabataan waxyaabo badan ay noqdaan. Marka ay yaraan iska dulqaadano. Wow, laa ilaaha illa rasuul. Waa 4 GB oo maxay tahay aan u baahnayn ayaa ku jira. Wuxuu ku leeyahay Windows keeps copies of all installed updates from Windows. Markaas wuxuu ku leeyahay Windowsku ma delete gareynaya iyagu waxyaabaha update-ka tusaale ahaan kala dad update gareyso update-ku iska jiraya waxyaabihii aan marka la install gareeyo kadib copy-goodii waa la iska haynaya. Updates are often after installing new version of updates. Windows update cleaning deletes or compresses older version of updates that are no longer needed. Marka waxyaabahan uma baahnid. Marka wuxuu ku leeyahay qaabkan Windows update cleanup waxa la yiraahdo ayaa maxay tahay clean gareeya ama compress gareeya. Marka waxyaabahan oo dhan uma baahnid. Marka aniga maalmood baan update gareeyay. Marka 4 GB oo space ayaa aan u baahnayn ayaa ku jira meesha. Markaas waxaad oranaysaa okay. Ka delete files gebi ahaantood ma delete garee ma baahnid. Marka waxa laga yaabaa inay waqti yar qaadato intuu garanayay clean gareynayo. Marka iyada halkaas ku dhantay qaybta koobaad. Xaggan dhigana waxaan sii wadanaa marka qaybaheena kale. Okay, qaybteena kale oo ahayd maxay tahay temp oo iyadana qashinka laga saarayo iyadana qashinku weeyaan. Markaas waxaad isla qabanaysaa win button ama Windows button plus R. kadibna waxaad ku qoraysaa intii aan meesha ku arkay temp TEMP kadibna calaamadda boqolkiiba ayaad ku qoraysaa waa intaas kadibna okay baad siinaysaa. Waxa ku soo baxaya waxyaabahan iyadana runtii waa space un bay qaadanaysaa. Delete baad oranaysaa. Waxaad isla qabanaysaa try again hadduu ku diido ka bood meel kale ku furan yahay weli. Waxaad iska oran kartaa waxyaabaha kalba shaqada kombiyuutarka ayuu dhex geeyaa meelahan temporary fileska si fudud ugu access gareeyo. Markaas waxaan kale oo hadhow aad iska delete gareyn kartaa macno ma laha. Marka taasina waa taa maxaynu isla qabanay win plus R kadibna waxaan ku qoray temp kadibna calaamadda kasii dooranay markaas gale kadibna waan delete gareynay. qaabka delete gareynay waxa weeyaan shift plus delete waa permanently waa inaad u delete gareysaa.
escape iska dheh. Okay, cancel ba iska dheh. kadibna tanna waa qaybtii labaad. qaybta saddexaad iyadana waxaad la soo qabanaysaa windows plus r kadibna waxaad kusii qori doontaa prefetch kadibna waxyaabahan oo dhan baa kuusoo baxaya. iyaga laftigooda waa qashin, waa inaad markaa delete garaysa. waxaad la qabanaysaa shift plus delete button kadibna completely wuxuu ku weydiinayaa are you sure you wanted to permanently delete those files, all those items. markaas permanently runtii xataa haddaad isla qabato shift plus delete wax doonaba ha noqdo, waxaas waa wax aan dib usoo noqonayn, iyaga waad ka samraysaa. markaa tusaale ahaan wixii aad rabto inaad dib usoo ceshato waa caadi delete caadi aad ku delete garanaysaa. laakiin waxyaaba aad rabto inaan weligaa kugu soo noqonin waxaad isla qabanaysaa shift plus kadibna delete buttonka. okay, delete markaa skip dhe iska bardhe macna malaha intaas. okay, kana waxa weeyaan casharka qaybtii labaad. qaybta maxay tahay waxaan jeedaa qaybtii saddexaad. qaybta afraad oo ah iyaduna runtii qayb aada u muhiima waxa weeyaan programmada iska soo kacaya adigoon u baahnayn. tusaale ahaan oo kale aniga programmada iska soo kaca waa intan bes. waxa weeyaan kan oo security-ga bluetooth-ka iyo kan oo ah graphic-ga iyo audio. intii kaloo dhan wax kaloo ma ogelin xaggaa yimaadaan. haddaba qaabkaad u garanaysaa kansasho waxaad soo furtaa waxa la yidhaahdo task manager ku dhufo. task managerka waxaa jira qaab kale oo loo furo. marka auto start app waa kuwan waxoo dhan baan waxaan ka dhigay disable. waxaa kaloo jira qaab kale iyadana loo soo furo oo ah control shift plus escape ama esk kadibna waxaad kasii dooranaysaa start app kadibna wax kastoo aanad u baahnayn waxaad ka dhigaysaa disable. gebigooda waan disable gareeyey. qaabkaad u disable gareynaysaana way fududahay. enable baad ka dhigaysaa kan ama intaad magaranaysa select garayso ayuun baad disable ka dhigaysaa bes. waaba intaaba casharkeenu maanta halkaasuu inoogu joogaa. wixii kale magaranaysaa u baahantihiina waad isoo sheegi doontaan haddii ay jiraan ama aan garanayo waa idinla soo magaranaysaa waa idinla soo socodsiin doonaa commentiga. intii waxaan ka codsanaya soo kale inaad subscribe saartaan haddii aad ka hesheen weyaan. haddii aad ka heshaan siina gudbiya walaalihiin kala u baahnaa waa laga yaabaa inay jiraan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.